dhegaystayaal waa barnaamij kale oo ku saabsan taxanaha sheekooyinka qur-aanka waana sheekadii nebi shucayb nabadgelya korkiisa ha ahaatee. reer madyan waxay ahaayeen carab degi jirtay meesha la yidhaahdo macaan ee cirifyada shaam ku taal. waxay ahaayeen qolo eebbe ku gaalowday halkii ay isaga oo qura ka caabudi lahaayeenna kayn ka caabudi jiray oo alla ka dhigatay. badeecada uu dadku ganacsiga ugu keeno ayay ka naaqusi jireen. markii ay wax u miisayaanna way ka kala dhantaali jireen. ha yeeshee markii ay iyagu wax ka miisanayaan xaqdarro ayay wax kaga bursan jireen. eebbe ayaa markaa u soo diray rasuulkiisii shucayb ahaa nabadgelya korkiisa ha ahaatee. wuxuu ugu garbeeyey kuna xoojiyey mucjisooyin iyo astaamo cadcad oo wax ku qaadasho leh. ilaah keliya inay caabudaan ayuu ugu yeedhay. waxa uu faray garsoorka inay dhowraan, wuxuuna uga digay gardarrada iyo dulmiga. wuxuu xusuusin jiray sida ballaaran ee uu iyaga eebbe ugu barwaaqeeyey, iyaga oo laangaab ah inuu isagu laandheero ka dhigay, iyaga oo sabool ahna inuu isagu hodan ka dhigay. markaas buu cadaabka iyo cadhada eebbe ku cabsigeliyey haddii aysan raacin waddada uu tusaayo ee uu ku hagaayo. hase ahaatee warkiisii way ku jeesjeeseen, wixii uu u soo jeediyeyna way ku qosleen. waxay ku yidhaahdeen, waryaa shucaybow, salaadaada miyaa ku faraysa inaan caabudno wax ka duwan waxyaabihii aabbayaasheennii hore ay caabudi jireen? ma iyada ayaa diidaysa dadka sidii aannu rabno inaan kula dhaqanno oo aannu faraha kala baxno hababkii aannu ku soo barbaaray ee daraaddood xoolaha iyo hantiduba ay noogu bateen? sidee baad noogu diraysaa diin aannu u barannay iyo xeerar aannu dhexalnay? nin caqli badan oo maskax weyn ayaadba ahayde arrintaas oo kale sidee bay kuugu soo dhici karta? jawaabahaasi shucayb wax cara ahi ma ay gelin, kumana uu niyad jabin. si qabow ayuu wax u tusaaleeyey, waxna ugu sheegay. wuxuu dareensiiyey hilbaha ay wadaagaan iyo qaraabada ay yihiin, taasoo dadku ay ku dheganuglaan og yihiin, taladii la siiyana ay ku qaadan og yihiin. markuu arkay inay u soo janjeersadeen, dhagahana xoogaa u soo raariciyeen oo u soo dabceen, ayuu u caddeeyey waddada ay iyagu hayaan inuusan la qaadi karin, waxyiga eebbana aanu meel uga dhici karin. wuxuu u sheegay xagga rabbi inuu ka haysto daliil cad oo aan u oggolayn inuu farriimihiisa fududaysto amaradiisana uu dhagaha ka furaysto. wuxuu si aan mugdi ku jirin ugu qeexay inuu eebbe hanuun ugu waxyooday, in xaqa fidintiisa loo soo diray, rabbi inuu naxariis ugu deeqay, waddo toosan oo iyaga laga dadayna in isaga la qaadsiiyey. dacwada loo doortay ee loogu waxyoodayna inuusan faafinteeda weligiisba ka daali doonin. wuxuuse u raaciyey inaanu rumaynta dacwadiisa ku qasbaynin, wax uu naftiisa raalli uga yahay waxaan ahayna aanu marna fari doonin, isaga oo weliba dulqaad iyo garaad badni ay u wada qarsan yihiin. intaas waxaa u dheer, ma aha nin hagiddooda iyo hanuunintooda wax abaalgud ah kaga doonaya. danta qurah ee uu leeyahayna waa intuu awoodi karaayo inuu hagaagooda isku howlo. ruux uu xaalkiisu caynkaas yahay ayaa mudan oo ka istaahila inay raacaan, taladiisana ay u guuxaan. waa ruux dacwada uu sido aan ka lahayn dan gaar u ah iyo qorshe u qarsoon oo uu isagu wax ku fushanayo. ha yeeshee inkastoo uu si walba wax ugu sheegay, haddana waxa uu dareemay waanadiisa inay ka sii jeedaan, warkiisuna aanu gelaynin. wuxuu u maleeyey raaciddiisa inay iskala wen yihiin, kibir iyo xasadnimo awgoodna ay dacwadiisa ku colaadinayaan. sidaa darteed wuxuu uga digay kana reebay waxyaabahaasi inay xaqa nacsiiyaan, wuxuuna ku cabsigeliyey qabashada eebbe iyo cadaabkiisa. si tifaftiran wuxuu ugu sheegay caasinimada iyo dembiyada ay faraha kula jiraani inaysan u diidaynin eebbe inay rumeeyaan, una toobad keenaan, si ciqaabkiisa iyo cadibaaddiisa ay uga nabad galaan. xumaanta caqiidadooda kolkuu u muujiyey, kolkuu u qeexay dulmiga ay falayaan, ba'a iyo hoogga ay ka dhexli doonaan, xujo walba oo adagna uu hadalladiisa ku xoojiyey, ayay u bayreen inay jawaabta dhabta ah ka meermeeraan, xujooyinkana ay aflagaada ka horgeeyaan. waxay ku yidhaahdeen, warkaaga in badan oo ka mida garanba mayno, maxaa yeelay dareenkayaga iyo garaadkayaguba kuuma soo jeedaan
dhagahayaguna kuuma fura. nin taag daran unbaa tahay, faraha ka laabo oo ha ka caraysiin dadka kuwa kaa awoodda badan, kuwa waxyeellada kuu geysan kara, asi isaga kaa daynaya magaca jiribka aad tahay iyo maamuuska loo hayo tolka aad ka dhalatay. hase ahaatee goodigooda Shucayb uma jixin wax cabsi ahna ma u gelin. isaga oo xujooyinka cadcaddaa adeegsanaya ayuu beentoodii iyo baadilkoodiiba askaaxda kaga dhigay. wuxuu isku halleeyey gargaarka eebbe iyo taakuladiisa aan soohodinta iyo dhammaadka midnaba lahayn. wuxuu u sheegay tolkiisa ay uga baqayaan inaanay ka xoog badnayn rabbigii iyaga laftooda xooggaa ugu deeqay, awoodda ay ku faanayaanna siiyey. wuxuu ku yidhi, bal maydun eebbe dartii igu daysaan intii aydun magaca iyo maamuuska qoladayda igu dayn lahaydeen. muu dabcin, guulguulkoodana kuma niyad jabin. wuxuu ku yidhi, soo daaya wixii dhib ah ee aad ii haysaan, hana la kala harina wixii aad yeeli kartaan. wuxuu u sheegay fidinta dacwadiisa iyo hirgelinta dantiisa inaanu ka daali doonin. wuxuu dhab ugu kalsoon yahay hiilka eebbe, abaalmarin wanaagsanna adduun iyo aakhiraba wuu hubaa inuu ka heli doono. rabbi inuu dadka ugu yeero ayuu ku dheeraaday. fariintiisa fidinteeda ayuu geed dheer iyo geed gaabanba u koray. qaar baa dabadeed u soo dabacay oo rumeeyey, inkastoo ay tiro ahaan yaraayeen. madaxyaweyntii reeraha ayaa markaa argagax ku dhacay. cabsi baa ka meel weyday. waxay ka baqeen Shucayb iyo kuwa raacay intay xoogaystaan inay diintoodu arlada ku baahdo, tirada rumaysanina ay korodho. kolkaas bay u goodiyeen, colaad kama dambays ahna u muujiyeen. waxay ugu dhaarteen isaga iyo kuwa rumeeyeyba inay beledkooda ka eryi doonaan haddii ay diintooda iyo caqiidadooda ku sii adkaystaan, midda reer tolkoodna ay dib ugu soo noqon waayaan. maalintaa buu Shucayb u sheegay kuwa isaga raacay inay yihiin qaar uu iimaanku qalbigooda buuxiyey, naftoodana uu ku milmay, qaar aan dhooqada xumida iyo gaalnimada dib ugu noqon doonin, cibaadada eebbana aan waxba dhaafsanayn. waa qaar siduu rabbi uga badbaadiyey aan damacsanayn waa dambe inay ku caasiyoobaan, iskalena weyn haadaanta baadinimada inay mar kale ku laabtaan. kolkuu ka quustay inuu xaqa ku hanuuniyo ee uu arkay inay gaalnimada ku adkaysanayaan, ayuu xagga eebbe baryo ula jeestay. wuxuu weydiistay abaaldarradooda iyo gaalnimadooda inuu ka abaalmariyo, cadaabka ay mudan yihiinna uu u soo dedejiyo. xaqii intay ka sii fogaadeen, iimaankii loogu yeerana naceen ayay sii kibreen. qoladii eebbe rumaysay ayay ku soo noqdeen, uguna goodiyeen hoog iyo ba inay ku fali doonaan haddii ay dulmiga diidaan, dadkana cadaalad kula dhaqmaan. weliba waxay ugu dhaarteen inay ciqaabi doonaan haddii ay sidooda yeeli waayaan, oo ay beegga iyo miisaanka dadka ka naaqusin waayaan, arlada iyo uunka ku noolna ay fasahaadin waayaan. Shucayb bay isna ku laabteen. waxay ku eedeeyeen inuu beenlow yahay, lana falay oo uuba nin sixran yahay. markaas bay ku cadhiyeen haddii uu run sheegayo, goosimo cirka ka mid ah dusha inuu kaga soo rido, cadaabna uu ku soo dejiyo. eebbana habaarkii nebigiisa wuu aqbalay, wuxuuna ku taageeray hiilkiisa. wixii beeniyeyna kulayl ba'an ayuu ku ibtileeyey. biyo oo idil baa oonkoodii wax ka tari waayey. hooskii ay harsadaan iyo aqalkii ay ku hirtaanba kulayl unbay ka sii kororsadeen. wax walba iyo meel kasta oo ay qabow ka jirayaanna way uga darayeen. markaas bay degaankoodii iyo guryahoodiiba ka carareen. halkee baase maqaadiirta eebbe looga carari oo meel xukunkiisa lagaga gaban karaa miyay ifkaba ku taallaa? maalintii dambe ayay cirka kor u eegeen, mise waa daruur ay u maleeyeen hanfiga inay ka hoosgeli doonaan, kuleylka qorraxdana ay kaga raysan doonaan. meeshii ay dhulka kaga aadanayd ayay ku soo urureen si ay u harsadaan, qabow iyo naacowna ay uga jiriyaan. goobtaas markay ku soo wada urureen, cidina aysan ka maqnayn, ayaa waxaa xaggii daruurta kaga soo daatay dhimbilo iyo danabyo naar ah. qaylo samada kaga timid iyo dhulgariir miyirkii kala tegayna waa loo raaciyey. waxaa ku dhacay argagax aan isaga oo kalala maqalana arag. hase ahaatee wixii ku dhacay iyo meeshii looga yimi toona iyaga oo aan weli garan ayaa la dhammeeyey. iyaga iyo noloshii ayaa la isweysiiyey. ifkii baa lagu cadibay, aakhirana way u harsan tahay. nebi Shucayb nabadgelya korkiisa ha ahaatee ayaa arkay wixii markaa qoladiisa ku dhacay. kolkaas buu isaga oo halaagga qabsaday ka tiiraanyaysan
indhaha ka duwe. Ha yeeshee wuxuu xusuustay inay iyagu eebbahood ka furteen kuna gaaloobeen, inay taladiisa ku jeesjeesi jireen, kooxdii isaga rumaysay inay yesi jireen, isaga waanadiisii inay dhagaha ka furaysan jireen. taas ayaa tiiraanyadii u haysay ka dabcisay. dabadeedna intuu xagga uga dhaqaaqay ayuu ka daba tuuray hadal dulucdiisu ahayd fariintii eebbe hadduu soo gaarsiiyey oo ay waanadiina ku diideen, inuusan garanayn sabab uu ugu naxo, sabab uu ugu tiiraanyoodo qolo sidooda oo kale gaalo ah. dhegaystayaal, barnaamijkeennii ku saabsanaa sheekooyinka qur-aanka maantana aanu ku soo qaadnay sheekadii nebi shucayb halkaa ha inoo joog.